بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. walaalayaal waxaad ku soo dhawaataan cashirkeeni taxanaha ahaa oo ahaa CCNA da cusub oo ah 220 ah iskuulkana waa iskuulkeeni oo welcome to Awdal Institute of Networking. marka waxa weeye maanta cashirkeenu wuxuu daba socdaa cashirkii IB version 4 discussion ka ahaa in maalintii dhaweyd aan bilownay imikana hadii ilaahay yiraahdo waxaan isagii baan sii wadnaa marka qaybihiisa kala duwanaa maanta waxaan gali doonaa hadii ilaahay yiraahdo sidaas halkan ba ku arkaysaan in magaranaysa subnetting fi LSM subnetting fi LSM actually ama xaqiiq ahaantii waxba kuma kala duwanaa kaliya waxa weeyaan subnetting ka maalintii dhaweyd waanagii videogii hore in yar kaga sheegayo waxaan idhay subnetting-ku waa markuu shaygu asalkiisa ka tago oo defaultiga ka tago asalku waa maxay waa tii aan idhi 10.0.0/8 haddii uu noqdo 10.1 eegada 10.0.0.0/8 buu ahaa soo maaha hadduu 10.1 hadduu noqdo oo 0-ga ugu horeeya tanka ku xigaya hadduu 1 isku bedelo that is a subnetted network waxa weeye waa network sarifmay oo la sarifay laakiin still wuxuu noqonayaa ma garanaysaa in major class buu noqonayaa oo isaga oo sarifan buu haddana major class noqonaya major class waxa weeye classkii uu ku jiray oo class B buu noqonayaa class B na wali waa major ilaa saddex class ayaa jira waatiyan IB version 4 ka soo maahayn classka koobaad waxaan nidhaa class A soo maahayn waa ka ugu badan class B na waxaan nidhaa waa ka ku xiga soo maahayn class C na waa ka ugu hoostiyada yar class A waa ka ugu network yar ee ugu hoostiyada badan hoostiyadu waa maxay waa kuwan computerada iyo routerada dhammaan lagu wada configure gareeyo ee loo assign gareeyo class B na in hoostiyadu iyo network way isleeyihiin oo waa kii loo qaybinayay 16 bit iyo 16 bit oo imika tusaale ahaan soo qaadano 172.16.0.0 subnetkiisu wuxuu noqonayaa 255.255.0.0 macnaheedu waxa weeye labada 00-gii waa host portion ama waa ma garanaysaa in waxa loo assign gareeyaa 00-ga hostiga ayaa iska leh 255 kuna network ayaa iska leh sidaas ayay ku kala gadisnaa iyo isku la ekaayeen class-yada waa tii aan nidhi networkiisa ayaa badan hostiyadiisa ayaa yar intaas hayga ahaato ku soo celin yaro revision ah marka waxa weeyaan in maanta IB version 4 kii sidii aan sheegnay ayaan hawshiisii wadna marka subnetting-ku waa sida wali kala 10.0.0.0 waa major class waa class A buuxa /8 markuu yahay ama 10.0.0.255.0.0.0 waxa kaloo lamid ah una sidii aan sheegnay 10.0.0.0/8 because 8 kan waxay tilmaamaysaa 255 ta hore inay 8 on tahay markuu subnetting-ku ka tago markuu ayna defaultiga ama sida uu yahay asalkiisu marka uu ka tago hal xabba la kiciyo sida yani class A imka tusaalahan soo qaadanay waxa la yiraahdaa subnetted waa subnetted laakiin wali wuxuu yahay major class ama classki weyna mar labaad ayaan ku celinayaa arinta leela fahmo VLSM wuxuu kaga yar duwan yahay VLSM wuxuu kaga duwan yahay hal network oo tusaale ahaan 10.1.0.0 ama 10.0.0/8 kaas baa waxaa loo qaybinayaa small segment ama qaybo yaryar ayaa loo qaybinaya in alliya inta doonto ayaa u qaybinaya ada controlanaya marka VLSM-ku waa variable length subnet mask iyay u taala VLSM-ku halka hadii aan ku qoro in hoosan u yardijiye halkan ku qoro waxa la variable hada waa intaas intay u taalaan idin qoray waan iska masixi doonaa variable length and subnet mask wasaasay intaasay u dhigantaa isaasay yani intaasay loo soo gaabiyay way marka maanta maxaan sameeynaynaa maxaan ogaanaynaa understanding fundamentals of binary
waxaan baranaynaa maanta oon in waxoogaa idinka tusi doonaa qaabka binaryga au u tahay IP addressku qaybka uu binaryga au u yahay halkan tusaale ahaan bal eeg IP addresska waxa uu ka kooban yahay baan nidhi gebigiisuba internet protocolku ama IP addresskani waa internet protocol saad ogtihiin wuxuu ka kooban yahay 32 binary digits ama 32 xaraf oo ah binary iyuu ka kooban yahay binarygu waa maxay binarygu ama waa 0 ama waa 1 wax kale u dhaxeeyaba male culimada waxay yiraahdaan markay ka sheekeynayaan networking-ka waxay yiraahdaan ama Cisco networking-ka waxay yiraahdaan gray out male waxaas macnaheedu waxa weeye wax madmadowba ma baleeba waxa weeye ama waa 0 ama waa 1 labada waxa la base 2 xisaabta marka la eego waxa base 2 waa base yani waa 2 waa maxay waa 0 ama 1 taas ayaa la yiraahdaa binary marka 0gu muxuu u taagan yahay 0gu wuxuu u taagan yahay hadii uu 0 yahay waxa ma garanaysaa in IP addresska ay qayb 0 ka tahay macnaheedu waxa network qaybta 0gi macnaheedu waxa waa host hadii IP addresska qayb 0 ka tahay macnaheedu waxa weeyaan 0gaasi ma IP address 0 ma noqon kare in yani networking-ka wixii 0 waa off saasa ugu dhib yar wixii 0 waa wax off oo digit off ah waa ka 0 is off ma garata is off digit 0 where 0 is off digit 0gu had iyo jeer waa off baa loo consider garaya ama la yiraahdaa on kana maxaa la yiraahdaa always waa on digit ama waa xaraf on ah tusaale ahaan kan oo kale imika in yani waa random waa xuruuf iska random laakiin imika 10 oo kale 10 ma garanaysaa oo kale waxa weeyaan 255 ka hore subnet maskigiisu imika kan oo kale subnet maski ayaan soo qaatay oo for example imika intan waxa u dhiganta in 255 كاني يعني binary ما كوب الدليل واسكا والنمبر random لكن كان أبغى أقول تبع وكا 255.0.0.0 وحيقول لك 255 كاس واسيد ده أو بت أو لإسكوجيي وحيسكون نقران 255 الصدق هذيك النوع ورا off because 0 هو off مركا off باس وقالي سالك ولا 0 باس وقالي مركو 1 كون يهينا de ma garanaysaa numberku waa isbedela waa isbiirsan asaas isku biirsanaya ilaa 255 laga soo gaaro may garateen taasi waa sida marka xaraf kasta oo 1 ah oo ama 0 ah waxa la yiraahdaa bit halka bit kale ka yimiday waxa weeyin binary-ga ama 1 ama 0 midku doonay ha ahaadee waxa la yiraahdaa bit haduu 0 yahay waa bit haduu 1 yahayna waa bit marka 8 marka aw noqdo oo sidan oo kale imika waa 8 bit ama kan oo kale imika waa 8 bit 8 bit hadii uu noqdo waxa 8 bit la yiraahdaa byte ayaa la yiraahdaa ama waxa kale oo la yiraahdaa octet because waxa octet loogu bixiyo dhibco ayaa u dhaxeeya dhibic intii dhibic u dhaxaysaba waa octet ka kale imika waa octet ka saddexaad waa octet ka afraadna waa octet marka waxa la yiraahdaa IP addressku waxa loo qadariyaa ama waxa IP addressku wuxuu yahayba octet wuxuu yahay 4 octet 4 octet waa maxay de 32 digit waa ka waa 4 meelood oo 8 4 meelood oo 8 marka la isku geeyo waxay noqonayaan kana ninka tusaale buu hayaan iska qaadna in 4 meelood oo 8 maxay noqonayaan u dhigmaan waxay u dhigmaan 32 bits ama 4 bytes ama 4 octets 4 octets intaaba waa la yiraahdaa la socdo ogaada okay intaas iyadana ma garanaysaas waa asaas okay xisaab waxa jirta la yiraahdo an operation waa maxay waa isbarbardhig sababta hadii imka lagu siiyo IP address tusaale ahaan imka IP address kana soo qaadanay waa 172.16.50.20 hadii la ina ku raawaniyo IP address kaasi sabnadku ku jira hadii la ina yiraahdo /26 waxay u taalaa waa ama waa iska dhaba 24 kiini ku soo celi oo u dhigma sheekada baan soo gaabiyo u dhigma sidan يعني waa IP address oo class B laakiin uu sarifay waa class C marka
waxaa layna yidhi ma garanaysaa 172.16.50.20 oo /24 ah oo 255.255.255.0 ah waxaa la idinka rabaa subnetka uu ka tirsan yahay ama networka uu ka tirsan yahay. marka maxaa la samaynayaa si lagu soo helo because iminka ilan waa IP address una networki kan uu ka tirsan yahay imika, laakiin waxaa la rabaa inaad kan soo saartid ma garanaysaa halka uu kaga jiro networku ama sida uu ka tirsan. marka waxaa la rabaa halkaasuu imanayaa networka uu ka tirsan yahay. ilaa imika sabna maskaga inoo sheegaya laakiin waa tusaalahan 172 gi waxaan ku bedelay binary waa intaan uu noqday sababtoo ah 128 kan waxaan u geeyay 32 ga wuxuu noqday 160. waxa kale oo u geeyay 16 ki waan ka dhaafay waa kan ilan waa saddex xaraf. 172 gi 1 baan hoos dhigtay 172 gi sorry 172 gi intaan uu noqday oo ah xisaabteeni ahayd 128 ka xisaabteeni waan u gali doonaa xisaabtana ayaan ku shaqeeyay moogtahay oo ah 128 and 64 32 16 8 4 2 1 xisaabtaasaan ku shaqeeyay. marka waxaan idhi xaggiisa kusoo celi waxyar baan hoos uga durkaynaa. waxaan xisaabtan aan ku shaqeeyay marka waxaan idhi ma garanaysaa 172 waa kan isagoo binary muxuu ku noqday 128 kan baan u geeyay magasaan ku noqday 128 ka xabad baan hoos dhigtay 128 kaas xabad baan hoos dhigtay because waxa weeye 172 marka laga jaro 128 horta 128 128 ma laga jari karaa waa laga jari karaa xabadan ayaan hoos dhigtay haddana yani waxaan rabaa proof inaan siiyo sidaan 172 ga u sameeyay inta kale de intaan ba laga shadaal qaadanaya. marka 172 sidiisaba ma laga jari karaa 128 ilaan waxa lagu 172 binary ku bedel moogta. marka qaacidadan had iyo jeer waan dhigi doonaa hadii ilaahay ilaahdo kalaasida markaan qaybinayna qaacidadan arki doontaan laakiin hadda ahaan يعني سان binary ga ugu bedelay an operation kana rabaa inaan waxa naga tuso moogta oo ila socda. marka xadana 172 baa leeyay ku bedela IP address kan oo dhan 172.16.50.20 baa leeyay ku bedela binary see loogu bedelaya. marka waxaan soo qaadanaynaa xisaabtan 128.64.32.16.8421 marka xalana 172 okay 172 128 mu ka go'i karaa how ka go'i karaa baan niri soo ma okay. marka 128 172 laga gooyay waxaa ii soo baxday halkana baan igu sheegay 172 marka laga jaray 128 waxaa ii soo baxday 44 soo ma okay 44 marka 64 de 44 kama goyn karo 0 baan dhigtay 32 gi ayaan u geeyay oo 1 baan hoos dhiganaya. marka 32 iyo haddii aan isku geeyo 128 160 bay ii noqdeen 160 marka uma baahnayo haddaan 160 u geeyo 176 bay iga noqonayaan. marka 176 uma baahnayo 172 baan baahanay marka ka 0 baan ka dhigayaa 8 ka ayaan u geeyay oo 1 aan ka dhigtay. marka 8 marka loo geeyo 160 waa 168 soo ma 168 4 kan aan u geystay oo hal xabaa marka kana 0 baan dhigay kana 0 baan dhigay. marka xisaabtaasi waa taan because waxaan 101 101 101 101 waa kaas inta soo ma la 101 kaasi 01 baan idhaahdaa haddana 01 kii waa kan soo ma 01 kaas 100 baan idhi 01 100 saasay kusoo baxday qaacidadaas saasaan u tusaa ma garatay. marka waxa weeyeen sidaas ayaan ku bedelay ma ila socotaan hadda 128 kii baan ka jaray 172 kii baan ka jaray 128 44 baa soo hadhay 44 kii 60 44 kama goyn karo 64 marka 0 baan hoos dhigtay marka 32 baan ka gooyay 44 kii markaan 32 ka gooyay waxa ay soo ama 32 baan u geeyay 172 128 kii 16 160 buu noqday 160 haddaan 16 ka u geeyo wuxuu iga noqonayaa 176 uma baahnay 0 baan iska dhigay 8 kii baan u geeyay 160 kii 168 buu noqday haddana 4 baan u geeyay oo xabada aniga hoos dhigtay marka 172 buu noqday kuwana 0 iyo 0 baan ka dhigay. marka binary saas ayaa loogu bedelay. marka aan maxay samaysaa aan waxay samaysaa hadda balan fiirino
kan marka hore aan ma garanaysaa saasaan ku bedelayaa marka صح marka because marka horan de 26 kan la ka dhigay okay marka waxa weeyin octadkii ugu horeeyay soo noqday octadka labaadna fi ma garanaysaa 16 kuna waa sidaas ma garanaysaa ilwaaka 16 kuna waa sidaas 50 kuna waa octadka saddexaad oo saasaan uu noqdaa dad xisaabisan wad garanaysaan 20 kuna waa kan oo 128 64 32 16 iyo 8 waa laga booday 4 ka hal ayaa ma garanaysaa hal dhigtay kuwa kalena waa 00 okay marka sabnad maskiga 255.255.255 na de saddexda ugu horeeyay way ka saddex bid ee ugu horeeyay waa wada 1 marka saddexdii octet ee ugu horeeyay waa wada 1 ka ugu dambeeyna waa 0 marka 0 buu wada noqonaya okay marka waxaan rabnaa numberka 20 ga ah meesha uu ka tirsan yahay ila xisaabiya marka haddaan isla eegaynaa يعني sabnad maskiga uu ka tirsan yahay oo yaa network ID giisa rabnaa isagu imika waxaan waa IP address sabnad maskigiisii wata marka waxaan rabnaa kan inaan network ID ka dhigno on gabigiisaba ka dhigno network network ID waa maxay waa halkaas inuu network yimaado ma gartay imika waa uu sarifan yahay oo waa IP address computer loo assign garan karo laakiin inuu network IP address kan ka tirsan yahay inaan helo ayaa rabnaa marka halkaas weyn isbedeshaa oo network timaata network uu ka tirsan yahay bal waa eegayna good marka waxa weeye hadaba aantu waxay u shaqeysaa sida tan hadii 0 iyo 0 isku hagaagaan 0 iyo for example haday 1 iyo 1 isku hagaagaan tusaale ahaan imka sidan oo kale koon wax yar ma ka darogna ha okay inagana hoos wax yar aan darogno okay hoos yar darhaay marka imika hadii 1 iyo 1 isku hagaagaan de waa 1 1 1 baad dhiganaysaa ma garatay 1 baad dhiganaysa aantu sida u shaqeyso way 1 baad dhiganaysa hadii ay 1 iyo 0 isku hagaagaan mar walba 0 ga xoog weyn 0 baad dhiganaysa mar walba 0 ga xoog weyn oo 0 baad dhiganaysa imka tusaale ahaan day kan waa IP address keeni aan ku bedelay binary-ga kana waa sabnad maskiga aan binary-ga ku bedelay marka waxaan rabnaa labadan in la isku geeyo waxa isla soo baxaana han aragno marka maxaa isku geeynaa 1 1 loo geeyo waa 1 day laakiin 0 1 hadii loo geeyo awal normally 1 bay ahaan lahayd ma imka waa 0 1 ka iyo 1 ka hadii la isku geeyno 1 buu noqonaya 0 ga mar walba marka anigu soo cesho hadii 1 iyo 1 isku hagaagaan waa 1 haday 0 iyo 1 isku hagaagaan waa 0 haday 0 iyo 0 isku hagaagaan waa 0 hadii waaba inta kaliya haday 1 iyo 1 isku hagaagaan 1 baad dhiganaysaa hadii 1 iyo 0 isku hagaagaan mar walba 0 ga xoog weyn oo 0 ga dhiganay ma fahamtay waaba inta un iminka 1 iyo 1 baa isku saag 1 baan dhiganay 0 iyo 1 baa isku saagay 0 gaan iska dhiganay 1 iyo 1 baa isku saagay 1 baan dhiganay marka wixii inoo soo baxaan hadhow ku bedeli doonaa ma garanaysaa IP address kan aan ku eegi isla garab dhigi doona waxa intan inoo soo baxdo ma garatan haddana iminka eeg 0 iyo 1 baa isku keen hagaaga halka soo maaha 0 iyo 1 baa isku keen hagaaga octadka afraad soo maaha de 0 baan dhiganaynaa 1 iyo 1 baa isku keen hagaaga ma 1 baan dhiganaynaa 1 iyo 1 kale 1 baan dhiganaynaa 0 iyo 1 0 iyo 1 0 baan dhiganaynaa 0 iyo 1 0 baan dhiganaynaa dabacdiisi baan siinayna ka kale maxay ku soo hagaagay 0 iyo 1 0 baan dhiganaynaa 0 iyo 1 0 baan dhiganaynaa 0 iyo 1 kale 0 baan dhiganaynaa waa adiga arkay 0 iyo 1 baa isku soo hagaagay kuwan waa wada 1 kuwan waa wada 0 ma garatay halkan maxay ka soo hagaagay 1 iyo 1 waa 1 sax 0 iyo 1 waa 0 0 iyo 1 0 0 iyo 1 waa 0 0 iyo 1 waa 0 muxuuna noqonayaa 8 octet 2 4 6 2 4 6 8 octetna inay ka tagtaa halka ayaa rabnaa oo yani sheegtaan halka maxaa noqonaya 0 iyo 1 waxa weeyaan 0 0 iyo 1 kale 0 1 iyo 1 1 1 iyo 1 1 0 iyo 1 0 0 iyo 1 0 1 iyo 1 1 0 iyo 1 0 okay kii ugu dambeeyna waa maxay 0 iyo 0 0 0 iyo 0 0 ilaa mar haday 0 iyo 0 wada yihiin waa wada 0 0 iyo 0 kale waa 0 saddexdaas waa isku mid halkan dabacda waa ma garat waa saddex 0 haddana 1 iyo 0 maxaan nidhi 0 ilaa 0 ga ka xoog weyn 0 iyo 0 0 1 iyo 0 0 0 iyo 0 0 0 iyo 0 0 oh good intana inoo soo baxday intana marka maxay isla noqonayaan bal equal kayga aan eegno
okay waxa weeyaan in 128 16 loo geeyay waa 160 in loo geeyay 8 waxa weeyaan 168 loo geeyay 4 waxa weeyaan 172 okay 172 dot okay kii kale eeg 16 kii waa maxay ila waa 128 64 32 16 buu kaasay soo maahayn marka 16 kiisi u geeyay 16 dot 50 giina muxuu noqday 128 16 ila xaraf kasta ka bilaaban ama 0 wax doona ahaade laakiin imika ahaan 128 hada buu yeelaa because halkaas 128 u taala moogta marka waxa dhanaysa because 128 64 ila waa saa xisaabta waxa saa ugu dhiganayna 128 64 ka inuu sida number kasta ayba yani ama off ahaada ama on ahaade halka ugu horeeya mar walba 128 oo wadiga arkay ka ku xigay mar walba 64 wadiga arkay ka ku xigay waa 30 waa garanaysa waa 32 oo wadiga arkay ka kale waa 16 oo wadiga arkay marka saasan xisaabto xisaabsanin kan 50 ga eeg 128 64 waa off labadaasi yani oo waxba la isku gama geyn karo waa 00 128 64 32 16 48 bay isku noqdeen Soomaa 48 8 waa 0 4 waa 0 and 2 48 loo geeyay waa 50 waka 50 gi IP address keena waa ka okay 20 gi muxuu noqday 0.0.0.0 marka muxuu sabnatankii muxuu ka tirsanaa IP address kii 1 ka ah ama 20 ga ahay wuxuu ka tirsan yahay sabna magarasa network ID ga ah 172.16.50.0 buu ka tirsan yahay /24 na waay ma fahamteen aantaas wow waxoogaa waa ya awsheed ma sahlana marka intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa in videogan aad iyo aad ayaad mahadsantihiin waa idin salaamay intaan mid kale iskugu soo noqono wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu